والله بالله تالله سيدا الله يوصو قرا ولبا aniga waxay ugu ahayd xanuun inteeda leeg waan isweydiiyay waan ku celiyo qofkii waxaan ku iriniyo suurtagal ma ah wuxuu yiri waa suurtagal wuxuu yiri ma engineeriso wali nool ha baa lagu yiri ka saara oxygen-ka ku yiri gudaha markuu galay oxygen-ka ka saara markuu yiri dhakhtarkii u qaabilsanaa engineeriso ayaa ku jawaaba aniga wax badan aan idin jiray xalaya igu dambeysay waxaan idin yiri engineeriso inuu nool yahay caddayn kara waxaan idinku yiri engineeriso inuu nool yahay caddayn kara waan idinku celceli jiray dad badan oo reer muqdisho ayaa igu diidi jiray oo ehelkiisa ah qofkan wuxuu ii soo qoran akhrinayaa waxaan u akhrin doonaa sida uu u dhacay wuxuuna ii soo qoray maalintii aan idin lahaa timir lafaa ku jirta waxaa booqday isbitaalka engineer waxaa booqday ninka la yiraahdo Fahd Yaasiin waan idinku celceliyo waan idinku celi waad aamin weyseen ninkan wuxuu ii soo qoray aan akhrin doonaa wuxuu ii soo qoray waa mid kamid ah dadka iga dalbaday wallahi safaaraddu ka shaqeeya qofkan safaaradda Soomaaliya ee dalka Qatar uu ka shaqeeya wuxuu ugu yiri safaaradda Soomaaliya dalka Qatar uu ka shaqeeya wuxuu la socdaa safiirka wuxuu ugu yiri please iga qabo ugu yiri marka kadib waan ka qabtay wuxuu yiri please 1 minute ma sii kartaa fursad waxaan ku yiri ha wuxuu ugu yiri qoraal ana ayaan ku soo diraa akhriso waxaan ku yiri niyo adaaba ila hadlaye qoraalka aan akhrisanaya maxay tahay wuxuu igu yiri qoraalkan inta aad markaad akhrisato kadib ayaan kula soo hadlayaa okay aad u maasantahay wuxuu ugu yiri qoraalkan markaad akhrisato ayaan kugu soo celinaya waxaan ku celiyo waxaan ku yiri qoraalkii waan akhristay sidee wax u jiraan wuxuu yiri engineeriso wallahu naxariisto waxaan ku yiri sidee bay ku dhici kartaa wuxuu yiri waxa soo galay ninka la yiraahdo Fahd Yaasiin dhakhtarkii uu la kulmay safiirka Soomaaliya ee dalka Qatarna waa taagaya wuxuu ku yiri saacadu safir adiga iyo Khadiijo Maxamed Diiriye banaanka u bax Khadiijo banaanka loo soo saaray iyo ninka la yiraahdo safiirka Soomaaliya isla markiiba waxa goobta soo galay Fahd Yaasiin wuxuu ku yiri dhakhtarka maalintaasna waan ka digay anigu marqaati meel dheer u qabsan maayo baara barnaamijkayga qoraalkana waa mid naxdin leh barnaamijkayga baara markastana waan idin jiray Khadiijo Maxamed Diiriyo banaanka u saaray Fahd Yaasiin wuxuu ku yiri inuu ninkan noolaado jadwalkeena ma aha isla maalintaas life ay soo gashay ma xasuusta codaan inta kaga shideeyo dhahay nin dhintay ay dadku leeyihiin wuu dhintay ma xasuusta inaan halkan idin kaga shido ma xasuusataan codka Khadiijo Maxamed Diiriye oo leh dadka Facebook waxay leeyihiin nin dhintay ayay leeyihiin wuu dhintay intuusan nin ku dhiman ayay yiraahdeen wuu dhintay ma xasuusta inaan idin shido ma xasuusataan cod ah Khadiijo Maxamed Diiriye oo leh ninka intuusan dhiman ayay yiraahdeen wuu dhintay iska bada hadda markuu dhintay codkaas ma xasuusta dib u raadiya kaydkayga ka fiiriya maalinta codkaasi ay Khadiijo Maxamed Diiriye tiri ayaana loo sheegay inuu geeriyooday shir jaraa'id ay qabatay rabbi ha u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho live-ka ay Khadiijo Maxamed Diiriye soo gashay maalintaas dib u baara waxay leedahay ninkii intuusan dhiman bay yiraahdeen wuu dhintay intuusan dhiman ayay yiraahdeen wuu dhintay engineeriso xalana waa tan barnaamijkayga uga sheekeynayay engineerkii qaabka loo qaarijiyay xanuun inteeda la eg ayuu lahaa maantana waa maalin aad uga duwan maalmaha mana dhiman maanta wuxuu geeriyooday maalinta Khadiijo Maxamed Diiriye ay dhahayso uu caafimaad qabaa saas buu arrintiisu tahay wax ka jira malaha Khadiijo Maxamed Diiriye waa loo sheegay jadwalka guudna waa loo sheegay isla markiiba oxygen-ka laga saaray muddo maanta laga joogo 4 maalmood ayuu engineerku xaaladiisu saas ahayd si dhaba markii la igu sheegay oo ninkan qoraalka ila wadaagay oo aad u qiimo badan oo ka codsanayo in ummadda Soomaaliyeed maanta kadib ninkaas waan aaminaya weligay ninkaas ma aamin waa iga yaabiyay waxaan ku yiriniyo meesha ummadda waxa loo sheegaa la rabaa wax dhaba ii sheeg wuxuu ugu yiriniyo runta martaha please ninkaas waa la dilay maxaa see ku dhici kartaa wuxuu ku yiri intuu oxygen-ki soo galay ayuu ku yiri ka saara oxygen-ka ku yiri isla markii oxygen-ka laga saaray ayuu dhakhtarkii wuxuu yiri bal dhageysta hadalka wuxuu dhakhtarkii ku yiri oxygen-ki ka saara markii la yiri oxygen-ki laga saaray engineeriso dhakhtarku wuxuu yiri maxaan sameeynaa waxa lagu yiri doctor anagu waxaan u keenay qadar ma ahaynba inuu badbaado waxaan qadar u keenay markii horeba ma ahayn hatta waliba markaas Fahd Yaasiin waxa laga hadlay dawladda Britain aan ugu taaganaa lagu yiri halkaan aan ka sheegay dawladda Britain aan ugu taagan maya dawladda Britain kuma wareeji kartaa
sida loogu wareejinaya isbitaal wanaagsan lama geey karo qalliinkii ugu horeeyay ee injineer Riso uu galay Allah u naxariistay ayuu ku dhintay sababta okay aad u mahadsantahay geeridiisu markay soo baxday kadib dadka Soomaaliyeed boqolkiiba 9 waa laga qarinayay ehelada waliba la joogo hadaa dad ehela ay idaawanayaan fadlan qof kasta oo injineer Riso raacay arinta lagu qulaha ana hadda ku sheegay injineer Riso ehelada lacaga loo wada qaybiyay waxaana lagu yiri qariya qof kasta in soo waco anigu 3 maalin aan qabsaday waad ogeedeen waatan xalay idin lahaa hal maalin ay dhiman barnaamijkayga xalay saq dhaxay intaas waxaan daba taagnaa inaan baaro dadka lacagta la siiyay ehelada la socday injineer Riso waa yirihiin dad badan ma aha qof kasta waxa lagu yiri telefoon walba in soo waco waxa tirahdeen injineer Riso waa caafimaad qabaa ninka balaayada ah oo meel kasta ka daba galay anoo ahaa meel kastaan ka daba galay su'aalahayga ay dhibsadeen waxa kamid ah wuu caafimaad qabaa markii la yiraahdo hal su'aalan weydiinay yaa arkay waxa la igu dhahay maya cid aragtay ma jiro yaa arkay Fahad Yaasin yaa arkay Fahad Yaasin hatta safiirku ma arkay okay injineer Riso wallahi una xariisto barnaamij gaar oo aad u qurux badan aan ka sameyn doonaa isla maanta waxa soo baxday in jinsiyadii lagala noqday madaxweyne Farmaajo Mareykanku jinsiyadii uu kala noqday dadka qaar waxay yiraahdeen jinsiyadii lagala noqday madaxweyne Farmaajo waxay ku salaysan tahay wadaninimo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka bishii March ay warqad u geysay in madaxweyne Farmaajo uu iska dhigo dhalashada Mareykanka yaa la idinka dhaadhicin wadaninimo uma dhigin Soomaali jecelna uma dhigin marqaatiga koowaadna arkay BBC da maaragta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa horaantii bishii Maarso ee sanadkan soo saartay amarka ku aadan in muwaadiniinta Mareykanka ay xil siyaasadeed ka qaban karin dalal kale maaragta yaa la idinka dhaadhicin sheekada ah Mareykanka jinsiyadeeda uma dhigin madaxweyne Farmaajo uma dhigin dal jacayl ee wuxuu u dhigay amar bishii March soo baxay ninkana dhalashada waxa laga noqday bishii 3aad sanadkan bishii 3aad laga laabtay qorshaha maanta loo shaacinayana waxay tahay in ummadda laga dhaadhiciyo waa wadani Soomaali jacayl ayuu u dhigay waxba kama jiraan bishii March amar wasaaradda arrimaha dibadda ka soo baxay ayaa Farmaajo xilka looga qaaday ama dhalashada Mareykanka looga qaaday yaanan hadda la idin kugu dhaadhicin yaanan hadda la idin ka dhaadhicin Soomaali jacaylna uma qaadin Soomaali jacaylna uma dhigin ummadaasi Soomaaliyeedna uma dhigin anigu cadayntaasaan hayaa Google-kan ka fiiriyay wasaaradda arrimaha dibadda way ka qaaday baasaboorka bishii 3aad afraad shanaad lixaad toddobaad maantay 8aad taa laga dhaadhicinaya Soomaali jacayl u dhigay Allah u naxariisto injineer Riso arrintan baaritaankeedu uu adag tahay si update aan u soo galay barnaamijkayga kan xiga ayaa waxaan iftiimi doonaa sida ay wax walba u dhaceen qoraal cadeynaya injineerku maanta ma dhiman ila baara oxygenka ka saara lagu yiri markuu oxygenka ka saaro saasoo ku geeriyooday Allah u naxariisto injineer Riso qof walba oo eheladiisa kamidana waxaan ka codsanayaa in arrinta baaritaan lagu sameeyo kulli inuu dad leeyahay hadda la arki doona haddii injineer Riso saan inta lagu qaarijiyo waa iska dhaafa sanguba wadariyaba ehelkiisu way ka sabreen sanguba wadariya ayaa Ethiopia lagu aasay haddii ehelkiisu way ka sabreen Soomaan Cabdiraxmaan Riso waxuma waynu arki doonaa baaritaankan barnaamijkan kan xiga ayaan asagoo dhameystiran ku soo bandhigi doonaa Allah u naxariisto injineer Riso nabad